kulan wacan mar kale akhyaartana dhegeysanaysaa waa qayb kale oo dooda jimcaha ee BBC London oo galabta aanu ku eegayno saldhigga military sutaga imaaraadka carabta uu ka dhisanayo magaalada Berbera waxa uu noqon doonaa kii ugu dambeeyay shisheeyuhu ka dhisto qaaradda Afrika haba ugu sii darnaadeen gobolada saaxil iyo geeska Afrika oo ilaa iminka ay ku yaaleen saldhigyada military iyo barar lagu sheego in laga ilaaliyo kooxaha xagjirka ah waxa leh Mareykanka iyo Yurub Shiinaha Japan Turkiga Sacuudiga kan iminka aynu ka hadlaynana waa saldhigga Berbera la sheegay in laga siinayo imaaraadka carabta oo ka duwan kuwa kale Afrika waayo kuwa kale waxa bixiyay ama ku yimid heshiisyo dhex maray dawlado la aqoonsan yahay barnaamijka dooda galabtayna waxaa marti nooga ah gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland Cabdiraxmaan Maxaa Cabdilaahi Cirro isla mar ahaantaana ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah wadani Hargeysa iyo khadka kaga jira isla Hargeysa waxaa khadka ku jira wasiirka madaxtooyada Somaliland Maxamed Xaashi dalka Mareykankana Dr. Cabdi Ismaaciil Samatar oo aan filayo inuusan iga baahnayn inaan iskiin baro marar badanna barnaamijka nagala qayb gala iyo Dr. Cabdi Maxamed Cabdi oo ah bare jaamacadda Metropolitan London aanse ku bilaabo warbixin uu magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha Cabdulaahi Maxamed Jaamac oo bal dib noo yara xasuusinaya wixii dhacay maalintii heshiiska la horgeeyay baarlamaanka waayahay intii ogol mashruuca saldhigga military ee Berberay gacanta taag hadal uma baahna cod baan qaadaya hadal gacmaha dhiga fadhi aan caadi ahayn oo la qabtay 12kii bishan aynu ku jirno oo uu ka qayb galay madaxweynaha Somaliland iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada ayaa si rasmi ah markii ugu horeysay waxa madaxweynuhu uu u soo hordhigay labada gole in ay doonayaan in saldhig military ay siiyaan dawladda Imaaraadka Carabta buuqiyasa waxaan xoog leh oo ka dhashay fadhigii golahaasi oo keenay markii dambe in xubno laga saaro si xoog ah fadhigaasi qaarna ay iskood uga baxaan ayaa waxaa ugu dambayntii la ansixiyey heshiis 15 qodob ka koobnaa oo ay soo hordhigeen xukuumaddu labada gole fadhigaasi markii codka loo qaaday ayaa waxaa ku dhawaaqay sidii codayntaasi u dhacday gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Salebaan Maxamuud Aadan soo jeedintii waxaa ogolaaday 144 waxaa diiday halbaa diiday halna waa ka aamusay anna ma codaynin sidaasuu ku ansaxay kalfadhigaan caadiga ahayna waa inoo xidhay xubnihii ka baxay fadhigaasi waxaa ku jiray gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi oo loo yaqaano Cirro ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani golihii waa la aftuubay goluhu ciidan ilaaliyu leeyahay laakiin saa ka qabsaday ciidan xalay la qorsheeyay waa golaha qabsaday dhinaca kalena bulshada ayaa guud ahaan waxay arrinta saldhigga military ay ka dhex dhalisay ku kala aragti duwanaan ay ka qabaan bixinta saldhigga muddada heshiiskani waa 25 sano oo ka bilaamaysa marka ay si rasmi ah u kala saxeexdaan labada dhinac aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyahayaga ah Cabdulaahi Jaamac oo warkaasi nooga soo diray magaalada Hargeysa waa tahay dooda galabtay oo jimca ah waxa sida aad maqlayseen martin oo ah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland waxaanu ku dadaalaynaa in aan Hargeysa kale oo kala xiriirno isagana wasiirka madaxtooyada Maxamed Xaashi laakiin dalka Mareykanka aan u galo Dr. Cabdi Ismaaciil Samatar oo aan filayo in uu namaqlayay barnaamijka hordhici oo aan filayo in uu namaqlayay barnaamijka iyo hordhici yarka hayo socday aanse ku horeeyo Cabdiraxmaan Cirro oo iminka khadka aan ku helnay magaalada Hargeysa noo waran gudoomiye heshiiskii waa tii hadda baarlamaanku ogolaaday oo maalintii dhaweyd labada gole dawladdu ay hor keentay heshiiska imaaraadka lala galay adiga iyo xubno kalena aad ka baxdeen heshiiska marka ma laydinka qarciye mas-uuli halkiinni baad taagantihiin dhammaan dadka dhegaysanaya barnaamijka waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaanan su-aashaada ka jawaabin waan jecelahay si dadku ay u fahmaan qaab dhismeedka qaranka Somaliland
gaar ahaan baarlamaankiisa inaan in yaro hordhaca ku daro waxaan leenahay dastuurka ayaa tilmaamaya tilmaamaha guud ee golaha wakiilada iyo golaha guurtida marka qodobka 39 dastuurka Soomaaliland wuxuu sheegaya golaha wakiiladu waa xubno ka wakiila dadweynaha waana qaybta koowaad ee xildhijinta ansixinta xeerarka ogolaanshaha iyo ilaalinta siyaasadda guud ee hogaaminta dalka golaha guurtida tilmaantiisa guud waxa weeye golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland waa golaha odayaasha waa qaybta labaad ee xildhijinta waxayna dib u eegaan xeerarka ka soo baxa golaha wakiilada intaan madaxweynaha loo gudbin waxayna gaar u leeyihiin dejinta xeerarka ku saabsan diinta dhaqanka iyo nabadgelyada Soomaaliland runtii waa ay ku socotaa qaran uu hogaamiye sharcigu waxaana ku socotaa dastuurkana asaas u ah waxaana nidaamka siyaasadeed ee jamhuuriyadda Soomaaliland saldhig u ah sida uu sheegay qodobka 9aad kala wadaag nabad dimuqraadiyad iyo hanaanka xisbiyada badan sidaa daraadeed horta marka hore heshiiskan ama ay keenaysay xukuumaddu ee saldhigga tale lagama yeelan oo waxaa taa cadaynaysaa xukuumaddu marka hore golaha wasiiradeeda lama keenin intaan golaha wakiilada la keenin axsaabta lagalama tashan shirguddoonka golayaasha lagalama tashan marka taasi waxay meesha ka saaraysaa kala wadaagii ku dhisnaa hanaanka siyaasadeed ee Soomaaliland ama nidaamka in yar ka dhaxgala gudoomiye miyaan lagu wargelinin madaxweynuhu inuu imaanayo labadii aqal ee la kulminayo dabeetana uu khudbaynayo oo arrinta uu soo bandhigayo madaxweynuhu wuxuu soo qoray warqad waxaana uu soo qoray labada shirguddoon fadhi wada jiro inuu isugu yeelayo in laga tashado arrimaha nabadgelyada hase yeeshee markaanu anagu shirguddoon arrintaa eegnay waxaanu la hadalnay madaxtooyada gaar ahaan wasiirka madaxtooyada mudane maxamuud isna wuxuu noo facilitate gareeyeen la kulanno madaxweynaha fadhigaan la kulannay waxaa naloo sheegay in gaar ahaan wasiirka madaxtooyadu noo sheegay shirguddoonka bisha 7deedii in golaha keenaya aan heshiis ay la galeen dowladda imaaraadka hase yeeshee bisha 10keedii waxaa caddaatay in wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland uu sheegay inaanu jirin wax heshiis oo lala galay xukuumadda imaaraadka iyo Soomaaliland waana caddaatay inaan heshiiskaasi jirin maalintii dhaweyd la keenay waxay ahayd heshiis xukuumaddu keentay in la keeno hase yeeshee waxaa la keenay waraaq af Soomaali ku qoray oo afar bog ahayd marka sababta ajandii loo qabtay golayaashan madaxweynuhu noo soo sheegay wuxuu ahaa in la keenayo heshiis dowladda imaaraadka dhex maray iyo dowladda Soomaaliland waa tahay qodobkaas waa jeclahay tafaasiishiisa inaan wax kaasii weydiiye nasiib wanaag maxamed xaashi baaba khadka noo soo galay wasiirkii madaxtooyada ee Soomaaliland xaashi waxba ma idinaan keenin baa guddoomiyihii baarlamaanku uu leeyahay meesha oo warqad wax ku qorqoran yihiin baad keenteen oo dhowr qodob sharaxaadii ay ku taal marka soo ma ahayn baarlamaanka iyo haddii aad labadii aqal shirinaysaan heshiis cad oo waafaqsan xeerka heshiisyada inaad keentaan bismillahi raxmaani raxiim ugu horeyn muxuu ahaa wariyaasha idaacadda BBC-da iyo guddoomiyaha xisbiga waddan ee dooda ku jira iyo dhammaan dadweynaha imaqlayba waa salaamaya mar labaad cabdinuura waxaanu golaha wakiil labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu hor keennay wax aanu loogu magac daray nuxurkii heshiiska saldhigga military lagu yeegleelayo heshiisyada sharti ma aha in lagu qoro af ingiriisi waxaa lagu qoraa afka ingiriisiga marka waa luqadda dunida dee isku afgarato waa lagu qori doonaa waa dhab waxaan horgeynay mudanayaashayadii oo kala duwan afkuna waa afka iyagii hooyo horta ceeb ma aha inaanu afka iyagii ku gidna sharaf bay noo ahayd waxaanu turjunay wixii afka kale aanu ku qorannay waxaanu ahaa nuucdii iyo nuxurkii heshiiska aanu geli doono ayaanu geynay guddoomiyaha golaha wakiilada saaxiibka cabdiraxmaanna oo ka mid a labadaas aqala
waxay halkaa mudanayaashu ka ansixiyeen wuxuu og yahay inay sharci yihiin cid bedeli kartaa waxaa ma jirto waa sharci marka nin hulaan xubin inuu wax qarsanayo baa la moodaa golaha waxaanu keenay wixii rasmiga ahaa ee xeerkii dabarka u noqonayay jamhuuriyadda somaliland iyo dalka laakiin laba dhinac markay wax kala saxiixanayaan soo maaha heshiis qoran oo yaad idinku wax la saxiixateen cid magac kuma qorna waxba kuma qorna cid tafaasiir iyo faahfaahin kale kuma qorna ma waxaad leedahay taa weli lama gaarine hordhac bay ahayd tani cabdinuur heshiisaanu saxiixnay ma jiro heshiiska waxaa la saxiixaa marka la ansixiyo heshiisku waa heshiis culus oo saameyn ku leh siyaasad dhaqaale nabadgelyo marka waxaanu la ansaxeexaynaa marka uu heshiisku ansaxo ayaa looyaro u baxayaan oo format iyo terminology heshiisyada lagu qoraya markaasaa la saxeexaya waana wax caana oo dunida laga yaqaan waxaanu anagu abuurayna hadda ma gudoomiye cirra maxaad u sugulaadiin marka inta heshiiska laga soo gabagabeynayo la ogaanayo nuxurkiisa iyo hawshiisa intaad ka hortegaysaan idinkoo aan si fiican u fahmin maxamed waa salaamayaa ma jecli inaan waxaanu sheegin ka sheego labada shir guddoon wuxuu sheegay inuu golaha keenayaan heshiis ay la galeen dowladda imaaraadka sida uu qorayo qodobka 53 golaha wakiiladu wuxuu ansixinayaa heshiisyada dawliga ah ay ka mid yihiin kuwa siyaasadeed dhaqaale iyo nabadgelyo meel ay dastuurka iyo sharciga kaga taalo nuxur heshiiska la keenayaa golayaasha ma jirto qodobka 12 ayaa xukuumadda awood u siinaya inay heshiis geli karto xukuumadda waxaa laga rabaa inay golayaasha keento heshiiska ay gashay marka ay soo gashay kadib waayo awoodaha qaranka waxaa loo qaybiyey 3 xukuumadda waxaa awood loo siiyey inay heshiis geli karto baarlamaanka waxaa awoodiisu tahay inuu hubiyo heshiiska ay dawladdu soo gashay haddaanay heshiisba soo gelin xukuumaddu sababtay u keenayso golaha ama golayaasha maxay tahay waxaa kaloo maalintaa jiray haddii aan ku noqdo runtii maalintaa wixii ka dhacay golaha runtii wax ugu hooy ahaayeen anigu guddoomiyihii golaha wakiiladaan ahay waxaa meesha ka dhacay maalintaa golahu u afduubna waxaa la keenay ciidan aan ahayn kii golaha ilaalinayay xukuumaddu heshiiskii ay sheegtay ma keenin meel uu nuxur kaga yaallo in la keeno golayaashana ma jiro waxaa ka warqabtaan in ciidanka aan la garanayni uu mudanayaashii golaha ay jirdileen jiidjiideen ku tunteen sidii jawaan beriisa gaadhi ku tuureen xidheen iyaga oo leh xasaanad sida uu qorayo qodobka 49 ee dastuur waa sheegnay golaha ku cusbaa iminkaan keenay annagoo weli joogna oo akhriyayna hal ansixiyo wax ku cusub bayaan golaha oon hore uga dhicin somaliland waxaana qabaa in xukuumaddu hadday doonayso xaq bay u leedahay inay heshiis gasho xaq bay u leedahay in loo ansixiyo ama loo diido meel ay ku taallo nuxur baa la keenayaana dastuurka meelna kagama qoran waa in heshiis la keenaa heshiiskii dawladda soo gashay waa in la keenaa waa tahay heshiiskii aakhirkii waa ogayn sidii kusoo gabagaboobay aqlabiyaddii waa tii la yidhi waa la ogolaaday wasiir maxamed xaashi bal dadkana dhegaysanaya xoogaa arrintan bal ismaandhaafka dhalisay iyo heshiiskan iyo bal qodobada ugu muhiimsan dadka u sharax waayahay intaanan halkaa u gudbin aan ka daba tago guddoomiyaha doodiisii hadda ujeediyey waa qodobka koowaadee golaha waxaanu keenay labada gole waxaanu keennay baarlamaanka jamhuuriyadda somaliland heshiis baanu keennay kaas baa noqonaya heshiiska aanu la gelino dalka imaaraadka carabta waa la saxiixi doonaa waxaanu nuqul rasmiya soo tusi doonaa shurgudoonada iyo ciddii kale ee danaynaysa waanu tusi doonaa haddii wax laga bedelo waxaa waajib nagu ah inaanu ku soo celino golayaashii
sharci dejinta qodobka guddoomiyuhu daliishaday waa golaha wakiilada heshiisyaa la geeyaa waa muxuu ahaa waanu geynay heshiiskii DP World waa nagii geynay annagu waxaana xukuumad bisil oo shuruucda ixtiraamta waanagii u geynay guddoomiyaha inkastuu kaana ka soo horjeeday guddoomiye cabdiraxmaan anigoo ixtiraamaya isaga iyo xisbigiisuba waxaanu hadda labada golo u geynay heshiiskan heshiis culus buu ahaa waxa weeye qodobka 61 dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu ka hadlayaa fadhiyada wadajirka labada gole ay isugu iman karaan qodobka 61 faqradda ta halka u dambaysa waxaa ku qoran arrimaha labada gole ay ka doodayaan ay isugu imanayaan inay ka mid tahay ansixinta heshiisyada leh dabeecad goboleed ama caalami heshiiskani waa heshiis waa tahay waa garanay tii kale u soo gal marka nuxurka ahayd ee dadka aad u fasiri lahayd waxa ay bal aad ugu axateen saldhigan berbere imaaraadka carabta heshiiska saldhigan military wuxuu jamhuuriyadda Somaliland u horseedayaa faa'iidooyin fara badan waana arrimaha hogaamiyaha ama xukuumadda talada markaa haysa ama hogaamiyaha ummaddu uu kaga duwan yahay dadka caadiga inuu keeno hal abuur iyo wax ummadiisa aan leeymaanka iyo dadka caadiga aanay markaa sahamin karin ama garan karin wuxuu Somaliland wuxuu xoojinayaa amniga iyo nabadgelyada guud ahaan mantiqada gaar ahaan marin biyoodka badda cas ee jamhuuriyadda Somaliland amniga ayuu wax ka tarayaa wuxuu wax ka tarayaa dhaqaalaha iyo horumarka dalkan oo adduun waanu kireenaynaa saldhiga waxaanu ka helaynaa adduun mashaariic baa naloo qabanaya waaweyn oo dalkan lafdhabar horumarkiisa waxaa ka mid ah wuxuu dhiirigelinayaa maalgashiyo iyo mashaariic waaweyn oo kale oo kii DP World kan kuwa fara badan baa isku siyaasadda xukuumadda waxa weeye dalkan inaanu saaxiibo dhaqaale ganacsi iyo siyaasadeed u abuuro wuxuu Somaliland soo kordhinayaa saaxiibo cusub wuxuu abuurayaa Somaliland ka abuuraya dana caalami ah oo kor u qaada sumcadda iyo siyaasadda qarankan waxaanu wadnaa anagu waa kuwa waa tahay waa ku gartay wasiir xaashi aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhinacyo badan baan taa ka eegayda iyo cawaaqibka ka imaan kara iyo weliba hadallo saxaafaddu ay kaa soo xigatay oo ahaa haddii arrintaani ay berri ka maalin imaaraadka carabtu ay xulafadan ay qayb ka yihiin xuutiyiinta yemen iyo isbahaysigooda iyo ka soo horjeeda ay ka weeraraan berbere cawaaqibka ka imaan doona iyo hadallo lagaa soo xigtay oo ahaa annaguba sunniyiin baan nahay oo isbahaysigaas waa laga yaabaa inaan ku jirna laakiin waxaan u baaqayaa doctor cabdi ismaaciil samatar oo khadka maraykanka kaga jiro in muddaan idin dhegaysanayay doctor samatar aad iyo aad baad u mahadsan tahay muddada noo dulqaadatay dooddu ay socotay 15 daqiiqo la soo dhaafay waadna maqlaysay guddoomiyihii baarlamaanka Somaliland iyo wasiirka madaxtooyada Somaliland walaal cabdinuur adi iyo dadweynuhu way salaaman yihiin iyo duqeydu waxaan isleeyahay siday hadalku u dhacay iyo waxaan ka ogahay wixii ka dhacay Hargeysa waxa ka dhacay riwaayad bahayd marka runta la sheego waxay riwaayadu tahay waxa weeyaan heshiis qodobadiisii iyo wixiisii oo dhan u dhan yihiin oo xataa wali la saxeexin laakiinse sidii heshiisku ahaa u qoran yahay haddaan la keenin baarlamaanka dawladdu way riyoonaysaa oo sharciga kuma socoto haddii sharci jiro meesha taasi waa ta koobaad waayo waxaan isleeyahay cabdiraxmaan ciro ayaa arrintaa ka saxsan waxaa kaloon ogahay oo Hargeysa layga soo sheegay in sida jujuub meesha lagu mariyey marka ma arkayo heshiis caalamiya de heshiis ma noqon karo haddaan wax la saxeexin weli marka waxa idin la dhaho waxa laga heshiinayaa waa amuuraha caynkan oo qodobaysan sidii loo saxeexi lahaa u qodobaysan in baarlamaanka la hor keeno dooda loo furo muddo la siiyo ee inta maanta la keeno aan la odhan maanta la ansixinayaa siilaanyo iyo madaxtinimadu meesha way ku khaldantaan isleeyahay ta kalena amuura way fara badan yihiin ood ka dhawaajisay hadalkaagii ugu dambeeyey laakiinse waxaad moodaysaa madaxda Soomaaliyeed ama tii jamhuuriyadda ka jirtay hore imika dhamaatay ha noqoto ama tan ka jirtay Hargeysa ha noqotee in dalku beec yahay baad moodaysaa oon laga baaraan degayn waxaan uu keeni doono haddaad aragtid saldhigyada laga samaystay Afrika intooda badan wax nuur iyo wanaag u keenay Afrika ma jiro
marka dadka masaakiinta ee nabadda keensaday waqooyi Soomaaliya ama Somaliland in si edeb leh haddii wax la keenayo loo keenay bahayd in ciidan meesha la keeno ma ayan ahayn sida la ii sheegay Hargeysa telefoonadu iiga sheegayaan aayaha waxaan uu keeni doono oo ka dhawaajisana lagama baaran degin walaal waa tahay aad Dr. Samatar waa mahadsan tahay isna waxa khadka London kaga jira macallin jaamacadda wax ka dhiga Metro University London Dr. Maxamed Cabdi waad maqlaysay Dr. Maxamed sida ay u socoto dooda iyo Dr. Samatar iyo khiyaartii ka horeysay gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani iyo wasiirka madaxtooyada waa mahadsantahay Cabdinuur aad baan ula socdaa waana salaamahayaa dhammaan akhyaarta ku jirta hawshan ka hadlaysa maanta waxaan si gaar ah u salaamahayaa Cabdiraxmaan Ciro iyo wasiir Maxamed Xaashi iyo Samatar oo runtii aan ku faraxsanahay inay arrintan maanta falanqeynayaan markaan u soo noqono arrintii maanta meesha looga hadlayay anigu waxaan ka eegi lahaa laba arrimood oo ah hab sharciyeedka ay u isticmaashay dowladda Somaliland inay ku marsa baarlamaanku aad moodaa yara inuu wiiqsan yahay oo ay degdeg ku jirto oo ay khaladaad badan iyo caburin iyo ay keenaysa taasoo saldhig u noqon karta in dimuqraadiyadda iyo nabadii ay reer Somaliland ku riyaaqahayeen inay meesha ka baxdo oo ay noqoto dowlad dictator oo dadkii khasbaysa nidaamka iyo sharciga loo maro sharciyada la marinayo waa mid hadda ka taagan ee taala magaalada Hague oo ahayd labada wadan ee hadda isku haystay badda inay arrintooda ahayd inaysan loo soo marin sharciyadii iyo nidaamkii loogu talagalay runtii midda iyo mid ka fog labaduba way u muuqan kartaa waxaan laakiin rabaa inaan halkan ku xuso ujeedada iyo cawaaqibka kaga imaan kara mandaqada hadda geeska Afrika oo ah dagaaladan cusub ee hadda aad moodo in 10 weji oo kala duwan ay arrintaasi horseedka u yihiin runtii dowladda Imaaraadka qof walba uu dareemi karaa danta ay ka leedahay geeska Afrika waa runta Dr. Maxamed waa ku mahadsantahay qodobkaas waa u gelinay waa noo soo socdaa aan ku noqdo wasiir Maxamed Xaashi wasiirka madaxtooyada Soomaaliland heshiiskan aad baa looga hadlay sharciyadiisa marka sidee Imaaraadka Carabtu idin la galeen ma Somaliland oo Soomaaliya kamida ilaa Imaaraadka Carabtu wax la yiraahdo jamhuuriyadda Somaliland bay ixtiraafsan tahay Soomaaliya ixtiraafsan tahay Cabdinuur oto waan ka xumahay runtii in professor Cabdi uu wax ku bineeyo aragtidiisa iyo doodiisa telefoon baa la yiri xogmooga xaajo waa biyaabay Soomaalidu tirada ta kale marlabaadka aragtidiisa iyo taxliilkiisa siyaasiga ah maaha mid dhexdhexaad waa duraya wuxuu cabdicaan ku yahay aragtiya ka soo horjeeda guud ahaanba aragtidiisa saddex xaq buu leeyahay laakiin adigu ama beene ama rume waxaan u jeedaa arag dhexdhexaad inaad u dhigeen doodiisa waa u ogolaa laakiin aragti dhexdhexaad ma noqon karto aanu noqdo Somaliland waa balla qoysay maaha laakiin waa xaqiiqo jirta oo rubuc qarni dunida hortaalay dunidu way nala macaamishaa heshiisyo caalami ah galaa waxaanu la galnay shirkadaha ugu waaweyn dunida ee shiraalada ayaan heshiisyo caalami kula jiraa waxaanu heshiisyo kula jiraa dalal aanu derisnahay kuwa ganacsi kuwa nabadgelyo Somaliland waa xaqiiqo jirta sidaas si lamida ayaanu heshiiskana dowladda Imaaraadka Carabta aanu ula gelaynaa haddii aanay ogeyn inaanu naga go'ayn oo aananu saldhigaa bixin karayna nagamay soo martiyeen meelo kale qoryeyn lahaayeen intaa waxaan ku darayaa ma laga yaabaa inay horey u qoryeeyeen oo idinka iyo federaalka iyo waxaan hoosta aad ka wada ogeydeen waxa beenaada markhaatigiisuu fogeeyaa waa kuwii shalayta ka hadlayay dareenkooda cabirayay dowladda federaalku waa ku kala aragti duwannahay annagu waxaanu nahay dal dimuqraadiya oo tusaale Afrika maanta waa labadii gole qarankan sharciga u dejinayay baanu horgeynay heshiiskan wadamada nagu xeeran iyo wadamada Afrika oo dhan saldhigyo military baa ka jira mid baarlamaan la geeyana ma jiro tusaale fiican ayay u tahay mantiqadan iyo ay qaaradda Afrika Kenya Soomaaliya Djibouti Eritrea inta fogba marka la iska dhammaan saldhigyo military baa ka jira waxa weeye hab wanaagsan baanu yeelay ummadda wixii u talinayay baan horgeynay heshiiskii aan doonayay dowladda Imaaraadka isfaham
heshiiskiina dhex marayay ee aanu isla garanay baanu hor keennay inay maalin qaataan iyo inay doodaan iyo inay diidaan anagu taamalihin iyagaa leh maanu afduubin cidna maanu muquunin cidna maanu jujuubin waxaan maqlayay dood halka ka baxaysa oo odhanaysa mudanayaal baa lagu xadgudbay xeer buu golayaashu leey lagu maamulo cabdiraxmaan waa guddoomiyaha aqalka wakiilada xeerkiisu wuxuu dhigayaa qodobada muxuu ahaayey qodobada 4 ayaa qeexaya qodobka 4 xeer hoosaadada mid ka mid ah labada gole qeexaya in mudanuhu xaq u leeyahay inuu doodiisa qodobka uu soo xigtay wuxuu ahaa baarlamaanku wuxuu leeyahay bilays iyo ciidan ammaanka sugo u gaara qolo kale oo cusub baa la keenay oo surka qabtay odayaashii telefishinada dhan baa laga fiirsaday mudanayaasha la taqantaqaynayo mudanayaasha waxa saaray xukuumaddu ma saarin cabdinuur waa kuu saxayaa maanu faragelin geedi socodkii habsamay socodka dooda iyo shirka guddoomiyihii shirka jeegaraynayay oo xeerku siiyey inuu fadhiisiyo ciddii ku xadgudubto dooda oo 10 mudane xaq uma leh inay afduubaan inta kale aad iyo aad baad wasiir u mahadsan tahay doonaya inay golaha afduubaan ma ahayn aqlabiyaddu waxay deetii codaysay waa tahay wasiirka baa loo daliishaday shirkiba wasiirka madaxtooyada Somaliland maxamed xaashi aad baad u mahadsan tahay waxa kale oo nagala qaybgalaya dooda afhayeenka baarlamaanka Somaliland Cabdullaahi Ciro iyo Dr. Axmed Cabdi Ismaaciil Samatar Raali igaahow oo khadka kaga jira Mareykanka iyo London oo kaga jiro Dr. Maxamed Cabdi Afrikada bari shantii iyo barweeye barnaamijkii dooda jimcaha ayaanu ku jirnaa oo aanu kaga hadlaynay saldhigga la sheegay in dalka isu taga imaaraadka carabta uu ka dhisan doono magaalada Berbera markana waxaanu u galaynaa bal ra'yiga dhageystayaasha qayb ka mid ah ka qaybgal barnaamijyada laanta af Soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message telefonka nambarkiisu yahay 4477862000 kadiba waxa ay kula tahay BBC Soomaali wahagaag cabdinuur haddii aan eego dadka facebooka ra'yigooda ku soo dhiibay aad iyo aad ayay u badan yihiin cabdilaahi maxamed xuseen oo jooga bali gubadle waan ka xumahay saldhigaasi military ay xukuumadda somalilan siisay imaaraadka sababtoo ah somalilan wax dan ahi uguma jirto heshiiskaasi waxaana iska cadin heshiiskaas afduub lagu ansixiyey laguna khiyaameeyey ummadda reer somalilan ayuu yidhi cabdilaahi waa maxamed daahir oo jooga muqdisho gaar ahaanna waa beri waxaan leeyahay saldhigga la siinayo ciidanka imaaraadka magaalada berbera mid sax ma aha maxaa yeelay kuma habboona dhinac walba hadday noqoto dhinaca ammaanka iyo meelo kale oo badan oo aan ummadda soomaaliyeed dani ugu jirin ayuu yidhi waa amiin shariif khaliif oo jooga sacuudiga runtii saldhigga ay somalilan siisay imaaraadka carabta waxaan u arkaa midaan laga fiirsan waayo shacabka iyo dowladda somalilan iskuma raacsana imaaraadka carabtuna waxa ay saldhiggaa u isticmaali doonaan sidii ay yeman uga duqayn lahaayeen mukhtaar cumar aadan oo jooga magaalada hargeysa waxay aniga ila tahay saldhigga militari ee somalilan bixisay mid aan waxba dalka u soo kordhinaynin waayo meesha waxa ka muuqata somalilan wax faa'iidaha inaanay ugu jirin cabdinuur cabdixaafid aad buu u mahadsan yahay Dr. Axmed Ismaaciil Samatar ayaan ku noqonaya dalka Mareykanka berbere waan ognahay oo berigi dagaalka qababa u jiray Mareykanka iyo Ruushka labaduba waa soo maray saldhigyo kula haan jireen iminka laakiin xaaladdu sidoo hore waa ka duwan tahay haddii ay noqoto berri ka maalin in imaaraadka carabta oo qayb ka ah isbahaysigan yeman xuutiyiinta kula dagaalamaya saldhig halkaa uu ka samaysto oo diyaarado iyo dabaabado iyo maraakiibya ay yimaadaan oo halkaa dagaal laga qaado ammaanka sidee buu u saameynayaa gobolkaas gaar ahaan somalilan walaal waxa weeye arrin ugu horeysa dowladdii hore la bedelay iminka muqdisho way ogeyd waxa meesha ka socda iyo heshiiska waxaanad moodaysaa inay u sanqato ay tidhi socda taasi waa mid haddaynu usoo noqonno arrintaa iyada ah waxa weeye imaaraadku hore umay indhayn inay saldhig ka samaystaan waddanka soomaalida waxa keenay waxa weeyaan dagaalka ka socda waddanka yemen cadaawad cusub ayay soomaali u keeni doontaa waxaan isleeyahay markaasi ciidan kale oo soo dega muxuu keeni karaa uu gobolka u keeni karaa waxaa la leeyahay khayraad baa la soo saari doonaa nabaduu kordhin doonaa ciidan dagaal ku jira nabad horta ma keeni karo waa kow
talabaad waxa weeye haddaad daristid walaal meelayooga saldhig laga samaystay intooda badan meeshu waxay noqotaa meel go'doona oon ku xidhnayn waddanka intiisa kale oon xataa madaxdu geli karin waxaad ka soo qaadaa magaalada muqdisho airportka ciidamadu hay joogaan wax allaaliyo wax nafaqa ah iyo xidhiidha oy la leedahay dadka soomaaliyeed xamar degan ma jirto tanna taasay u ekaan doontaa waana ciidan dagaal ku jiro meel kale ta kale waxa weeyaan ciidamada caynkaasa iyo saldhigyada caynkaasa waxay keenaan edeb xumo fara badan oo shacbiga lagu beero oo ay ka mid tahay dhiloosi in la dhilaysto in khamri iyo balaayo la keeno waxyaabo caynkaas oo fara badan marka waxaan odhan lahaa anigu haddii la doonayo in gobolka la dhiso oo khayraadkiisa la kordhiyo oo dadka noloshiisa kor soo dhacdo hanaanka lagu keenayaa waa inuu ahaadaa mid xalaala oo cad oon dadka la caburin waa taasi waa mid ta kalena waxa weeye walaal dagaalkan yaman ka socdaa maaha yamanun kuma koobna gobolkan waqooyi soomaalidu ama somaliland la dhahaa waxa ku caan imika yahay inuu nabad yahay oon rabshado badan ka jirin intiisa badan waxaan ka baqanayaa haddii ciidamadaa la keeno maaha uun kuwa yaman ka dagaalamayaa inay soo weerari doonaan oo ay rabshado ka keeni doonaan gobolka nabadda ee qaar kale oo kuwaa ku xidhan oo meelo ka fog jira inay meeshaasi soo faragelin doonaan oy dhib fara badan keeni doonaan marka waxaan odhan lahaa si xalaal waxaan looga dhigo haddii xataa dadka gobolka degani ay ogol yihiin in si wanaagsan loo soo bandhigo isagoo heshiisku qodobaysan yahay oo wax walba la og yahay dadku hay ka doodaan dabeedna baarlamaankaasi uu ka doodo gobolku dabeedna markaa jidkaa la maro laakiinse maanta la keenay waa la marinayaa dadkii kamay doodin layskuma raacsana waxaan isleeyahay wanaag fara badan keeni maayo haddaan jid xalaalo la marin walaal waa tahay aad iyo aad waa kuu soo noqonayaa guddoomiye ciro khatarahaas ma kuu muuqdaan haddii saldhigu caga dhigto inay imaan karaan berri ka maalin بسم الله الرحمن الرحيم قلت صاحبك محمود waxaan jeclaan hal qodob ka saxo fadhiga wada jirka waa tilmaamaya qodobka 30 ama tilmaamaya qodobka 60 kuma jiro heshiisyada dawliga in la wada ansixiyo golayaasha talabaad maxamuud anigoo ixtiraamaya mar wuxuu yiri waxaan keenay heshiis dadkii ugu dambeysay golayaasha marna wuxuu nuxur baanu keenay marna wuxuu heshiis aanu galay weli ma jiro marka waxay la tahay bal mid uun aada ha u caddeeyo wuxuu keeneen golayaasha wuxuu ahaa waa weydiinaynaa qodobkii kalena ay keeneen cawaaqibka saldhigga aniga cawaaqibka saldhigga waxaan u arkaa inaanu saaxiibo badan u keenayn somaliland inaanu nabadgelyo u keenayo nabadgelyo xumo u keenayo inuu cadow badan u samaynayo in dayuuqada ka kacda berbera ee maanta yaman duqaysa ay jawaab ka iman doonto aan ka farxin shacbiga reer somaliland qarannimada somalilandna halis ku ah burburin karta anigu taasaan ka rumaysnahay saldhigga waxyaalii badnaa uu tuurinayey professor samater xagga bulshada la xiriirayeyna iyo taariikhdii saldhigyada ee africa iyo waxay u keeneen cawaaqib xumo intaba waa la qabaa waa tahay wasiir xaashi haye waxaas xaggee ka gelaysaan oo eeda haddii ay dhacaan hallo wasiirkii madaxtooyada ee somalilan waa u soo noqonaynaa inta aanu ku jirno halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee b b c london akhyaartana dhegaysanaysay waa galab jimco ah barnaamijku waa doodii jimcaha oo aanu ku falanqaynaynay saldhigga military ee baarlamaanka somalilan ay toddobaadkii lasoo dhaafay isku raaceen in la ogolaado in imaaraadka carabtu ay saldhig ku yeeshaan magaalada berbera wasiirkii inta uu ka soo noqonayo waxaan jeclaan lahaa inaan u baaqo dr maxamed cabdi xagga sharciyadda marka aan fiirino oo jaamacadda london ku taalla wax ka dhiga metropolitan la yidhaahdo xagga sharciyadda wasiirku markii uu ka hadlayey waxa uu yidhi anagu inkastoo aan dunidana laka aqoonsan haddana imaaraadka keliya ma ahane meelo kaleoo caalamiyaanu heshiisya la galnay oo heshiiskaana kuwiibu qayb ka yahay marka dr samaterna waa uu tilmaamay in federaalkuna uu luku lahaa laakiin ilaa iyo iminka wax mas-uuliyiinoo ka hadlay
aanaan hayn ka waran iyada xagga imaaraadka waa mahadsantaha cabdinuur arrintani horta waxay sal ku leedahay oo aad mar walba aan ka marnayn inay soo martay process badan haba ugu badnaatay arrintan federaalka oo aan aaminsanahay anigu hadda maamulkii xilkiisu hadda ka dhamaaday soomaaliya inay lug ku yeelanhayaan ama ay ku leeyihiinba habka iyo sharciga iyo nidaamka loo maro in heshiis lala galo dowlado kalena runtii waa ka duwan yahay oo wuxuu leeyahay jid cad oo aan khalad iyo sax midna aanay lagu salayn karin oo ay sax tahay oo ay dowlad walbaba taqaano systemkii nidaamka ee processka u mari lahayd arrinta somaliland horta runtii wax badan baa qabya ka ah saan filahayo oo hadda ka maran iyadoo ay tahay dowladda intiraafsan yahay oo ka mid a dowladaha adduunka ee ku sharciyeysan oo geli karta heshiis sharciyadeed oo laba dowladood oo kale ah taasi horta qabyo badan bay keenaysaa oo runtii arrintaasi waxay aad usoo wiiqi doontaa awoodda oo heshiiskaanu yeelan kara xataa mustaqbalka hadda dowladdan cusub xataa hadda soomaaliya ka dhalatay maanta hadday hor istaagto waxaan u malaynayaa inay dowlad heshiiskaas uu noqon karo wax ummadda oo maaragtay wax u keeni kara ama dib u celin kara dhanka kale haddaad ka fiirisana processka iyo systemka loo maray ee labada baarlamaan ee shalay looga ansixiyeyna waxaad moodaa inuusa waafaqsaneen hab sharciyeedka heshiisyada lagu sameeyo adduunka loo isticmaalo ama hadday noqotoba iyadoo loo cogsanhayo sharciga iyo dastuurka uu leeyahay nidaamka waxaa hadda hadlahayo waxay ahayd afhayeenkii baarlamaanka ee somaliland oo runtii qeexahayay sharciyada iyo nidaamka uu ku fadhiyo markii heshiis la keenayo heshiiskuna waa inuu yeeshaa details badan oo ah cidda lala galay hay-adaha la sii galay iyo qodobada uu ka kooban yahay iyo waxyaalaha raba in mustaqbalka xataa lagu heshiiyo marka intaa ka soo dego hab sharciyeynta heshiisyada oo nidaam cado adduunka ka wada dhexeeya ay tahay la yaqaano waxaana usoo noqon karaa tan kale oo ah systemka hadda maanta meesha ka jira runtii qof kasta oo iyo dowlad kasta oo maanta mandaqada banaynaysa way dareemi kartaa arrintan inay tahay arrin lug ku yeelanaysa dagaalada ka socda geeska africa yaan oranay yeman waxaana u malaynhayaa degdega ku jira imaaraadka ee heerkaas oo la cararaysaa inay tahay arrin ay kaga didahayaan iiraan iyo xulafada ay wadato oo ruushka ah oo runtii ay laftigooda ay danaynhayaan inay awood ka siiyaan arrintan dagaalka meesha ka jirta iyo gobolkaba waa tahay doctor maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tahay wasiirkii waxaa noo soo noqday madaxtooyada somaliland oo in yar khadku uu naga go'ay wasiir waa u jeedaa meelo badan baa walwal laga muujinayaa gudaha iyo dibadda iyo arrinkan etoobiya iyo saldhigga iyo ka warran iyada laf ahaanteeda waa tii toddobaadkii hore wafdi aad u ballaaran aad u dirteen addis ababa oo wasiirkii arrimaha dibaddu saacid uu hogaaminayay oo aad la kulmeen ra-iisul wasaaraha etoobiya xayle maryam ma ka qarciseen shakiga etoobiya ay ka qabtay saldhiggaasi saameyn inuu ku yeelanayo amniga mandaqadda cabdinuura waa ka xumahay xoogaa baan ka maqnaa marka waa laga yaabaa in hadallada qaar i dhaafeen saldhigga military ugu horeyn waa dad dee waxgarada baanu nahay oo dantooda yaqaana waa ina maslaxadda iyo danta ummadayada ka jogjogaa mar labaadkana waxaanu ka duulaynaa waa ina maslaxadda iyo danta dalalka aanu saaxiibka iyo deriska nahay ee xuluf iyo bahwadaagta nahayn oo danahooda aanu waxba yeelin annagoo taa ka duulaynaa xikmad iyo xeelad siyaasadeed ay salka ku hayso dowladda etoobiya ilaal dhowr jeer baanu arrimahan iska aragnay waa ka wada soconnaa waa ku dareen gelinay dowladda imaaraadkana waa dowladda iyagana xidhiid fiican yihiin oo saaxiib yihiin dowlad kale oo saldhigan isticmaalaysaana ma jiro heshiiskana waa ku caddahay mandiqada guud ahaan geeska africana wax dhibaato ugu horseedaya ma jiro inuu nabad u horseedaa baan doonaynaa mandiqada marka laga hadlayo yeman waxaanu doonaynaa inuu amniga iyaga wax noo kordhaan inay wax naga xumaadaan marka waxaa laga yaabaa rag aan xogaal u ahayn oo xaqaa'iqa halkan yaalla aan xogaal ka ahayn inay dooda ay wax badan ku bineeyaan annaku waxaanu derisnahay yeman waa wadan weyn qaybta cadan baanu derisnahay waa qaybtay degantay dowladda sharciga annagu dowladdaasaan xukuumad ahaan aqoonsanahay muxuu ahaayey ma aqoonsanin maamulka xuutiyiinta
550 kilomitr bay sanci u jirtaa berbera rag kale itaal weyna badan yihiin marka cabsi iyo walwal ma aragna dadkayga soo food saaraynaya baqaha iyo walwalkaa loo muujinayana ma qabno saldhigana saldhig maanta la isticmaalayo garoon diyaarsanoo maanta la isticmaalayo maaha waktiga la dhisayo dekeda iyo garoonkaasi wakti dheer bay qaadanayaan oo waayaha yamaneed lafteed iyo duruufaheed wax iska bedelaan marka yaman iyo xuutiyiinta wixii idinka soo gaaray waa u babacdhigi kartaan bay ila tahay saasaad aad ka wadaa waayo cali cabdalla saalax iyo xuutiyiintu waa dhinac cali cabdalla saalax iyo xuutiyiintu waa yaman hubkii dowladda oo dhan bay haystaan sacuudigay duqeeyaan magaalooyin waaweyn oo sacuudiga hay duqeeyeen ma waxay u daahayaan inay berbera duqeeyaan cabdinuurow muxuu ahaa welwelkaa ma qabno oran mayno riski ma jiro laakiin marka aanu isbarbar dhigno faa'iidada aanu saldhigan ka helayno iyo khatarta ku jeer faa'iidadaa badan muxuu ahaaye waxaa intaa weheliya yaman iyo xuutiyiinta waxay deris yihiin wadamo goobo nooga dhowo eritrea iyo jabuuti kamid yahay baa jira oo saldhigyad ay ku leeyihiin xulufadani dee asaariib cirka kasoo daadanaya xuutiyiintu maaha eritrea intay jirto waad aragtaa 2 saldhig baa ku yaala imaaraadkiiyo sacuudigu leeyihiin jabuuti waad aragtaa ma qabno anagu saskaa waa isku kalsoonnahay haddiiba ay dhacdo dee in nala soo doontana dee muxuu ahaaye dee waxbaanu iska caafiyana annaga iyo dee cidda aanu heshiiska amniga ku jiraa waa tahay wasiir aad baad u mahadsan tahay guddoomiye ciro heshiiskan waad u jeedaa idinkuna waad ka biyadiideen labadii aqal ee baarlamaankuna waa meel mariyeen dowladdu waxay ku adkaysanaysaa dantii ummadda ku jirta waa ognahay khatarihiisa iyo faa'iidadiisa laakiin faa'iidadiisa badan marka intaad idaacadaha isu marmarin lahaydeen iyo doodaha caynkaasa iyo qir sidee xaga lagu xagta ilkana ku nabad galaan sidee heshiiskii u yeeshaan maxaad dowladda ka doonaysaan in la sameeyo si wixii u socdaan oo dadkii uga wada faa'iidaan oo salaamaya dhammaan dadkii dhegeysanaya oo wasiirka iyo profesorada ku jira oo mahadnaqaya waxay la tahay muran kuma jiro shakino kuma jiro saldhig military waxaa loo adeegsanayaa inuu yahay arrimo military waynu ognahay dowladda saldhiga doonaysaa inay dagaal kula jirto ay ka mid tahay dagaalka ka socda hadda yaman waxay la tahay waxaa loo dedejinayaa in loo isticmaalo waxa weeye garoonka berbera lagagana duulo yaman ani waxaan qabaa inaanu saaxiibo badanna u keenaynin saldhigaasi somaliland ee uu cadow badan u keenayo nabad u keeni maayo nabad xun u keenayaa waxaana qabaa inuu sahayan karo mashruucaasi mashruuc sahayan kale somaliland inuu yahay oo nabadgeliyay ku taagan tahay somaliland oo kaga duwaneyd soomaalida inteeda kale waxay kaga duwaneyd oy ku faanaysay waxay ahayd nabad sidee marka maxaa dowladda marka u sheegi lahayd oo xal ah saaxiibkay maxamuudna waan salaamayaa markii hore wuxuu yidhi waxaanu keennay nuxur markii dambena wuxuu yidhi heshiis baanu keennay markii saddexaadna wuxuu yidhi wax heshiisaanu seexnay ma jirto xukuumadda dastuurkaa siiyey sharciga inay geli karto heshiis nuxurka iyo waraaqdan ama soomaali ha noqoto ama yaan ahaan hadday wada seexantoo labada dhinacba seexan dee wada kaan lahay heshiis waxaa leenahay dastuurka lagu dhaqmo xukuumaddu qodobka 12 baa siinaya awood inay ku gasho heshiis inay saldhiga kalayn karto waxaa leenahay heshiiskii ha keento ummadana ha hor keento heshiiskii ay gashay ama geli dee haysna caddayso oodan xamro kuwa kale waxbaan ka ogeeyey taana ummadda shakigaa ka saarto asalaamu calaykum wasiir xaashi ma sidiinaad isaga adkaysanaysaan iyo labadii aqal baa ogolaaday mase xoogaa ah diidmada dhinacyada kala duwan iyo waxbaa tixgelinaysaan oo isku noqonaysaan hadaladii aan golaa ka yidhi de waa la maqlayay raadkeedii baa qoyanoo wax iska hor yimi ma odhan haddana odhan mayno nuxurkii heshiiskaanu keena nuxurka micnihiisu wax waa la yaqaanaa soomaaliga waa wixii asalka ahaa ee heshiisku ku fadhiisanayay heshiiska wax waa terminology
luqadaha lagu qoro qurxinta looyarada nuucdii baanu keenay manaanu saxiixin waan haddaan ku celinaya maanu saxiixin waxaanu saxiixaynaa marka iminku sharci yahay labadii gole markay ansixiyeen waxaanu heshiiskaas dawaaba la sharciyey labadii aqal ee jamhuuriyadda somaliland sharci-dejinta ansixiyey oo hadday noo diidaanna waanu ka hadhi lahay hadday ansixiyaanna waa sharci cidda ka hor timaadaana waxa weeyaan xaq uma laha inay taalin karayso waa dembi haddaanu anagu bedelno oo waxaa noola ansixiyay waxa ka bedelana waa dembi guddoomiyahana saaxiibkay cabdiraxmaanna waxaan leeyahay waa maanta wuxuu ka mid yahay ragga u sharaxan inay hogaaminta dalkan haddii alla u qadaro inuu ixtiraamo aqlabiyadda golayaasha uu madaxda mid kamida ka yahay baa waajib ku ah waa dhaliilayaa inuu doodii ka baxay isagoo guddoomiye golaha wakiilada ah aqlabiyadii 144 mudanada ansixiyey inuu ixtiraamo ayaa waajib ku ah oo uu taageero halka uu ka naqdinayo ama uu durayo doodu marka hore ahayd bay furayd caariyaadu marka hore furayd laakiin mar haddii goli ansixiyey waxay inuu taageero isaga iyo xisbigiisuba sidaasay somaliland kusoo meermartay beri ka maalinna dee waxaa dadku isweydiinaya oo haddii natiijada doorashada lafteeda la isku qabto ma sidaasaa loo murmayaayo saaxiibkii cabdiraxmaan iyo raggiisu ay u murmayaan waxaan leeyahay aqlabiyadana ixtiraama sharciga iyo mudanayaasha faraha leh ee xisbigiisa qayb kamid ku jiraana ha ixtiraameen halkaasaanu ka wadaynaa shakiga dadka waa ka saaraynaa ummadda waxaan doonayaa in horumar iyo saaxiibo u kasabno siyaasadda iyadoo annaga waa tahay waa ku gartay wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay goobaha la rabo de waa meesheeda waana keeni doonaa nuqulkaas asalkaana waa tusi doonaa markaanu soo saxeexno qodob kalaan u gelaya oo ah mas-uul u hadlay dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxa uu sheegay arrinta heshiiskan inaysan ahayn mid iyaga ka socoraysa oo ay ashtako rasmi ah u gudbin doonaan qaramada midoobey ee jaamacadda carabta oo arrintaa ku saabsan idinkamay hadlin waxay yidhahdeen federaalku waxay la hadlaysaa jaamacadda carabta iyo qaramada midoobey doctor samater maxaynu u fasiranaa taas walaal waxa weeye haddaan just tilmaam yar bixiyo markii sacuudiga iyo iraaniyiintu is haysteen waxay soo gaadhay in lacag u dhow ilaa 40 milyan oo dollar dowladda soomaaliya la siiyey madaxtooyadeedii hore si ay uga saaraan iraaniyiinta waddanka waxaan qabaa ayaan darrada haysata waddankeenna waxa weeye iyo dadkeenna ama maamulka hargeysa jooga ha noqdo ama kii xamar joogi jiray ha noqdo waxaynu ognahay 25 sannadood ee balambal ku jiray nabad ha ka jirta hargeysa laakiinse carruurtii fakanasay badaha galayaan iyo waxay kaasa carab soomaali intay isku soo taagtay tiri hiil iyo hoobaanu siinanaa ma jirto waa laga faa'iidaysanayaa sacuudiguna wuu ka faa'iidaysanayaa kuwan imaaraadkuna way ka faa'iidaysanayaan labada madaxee jooga xamar iyo hargeysana weli may keenin wax ummadda u qalma oo jidkaa xalaaleeya marka waxaan qabaa waxa weeye dowladda federaalku ee hargeysa ee xamar joogta tan cusub dee waxba ka odhan maayo laakiinse tii soo dhammaatay waxa weeye may keenin wax dadka reer waqooyiga ee soomaalida ah qaboojiya halkeena may keenin tan cusub baanu ka fikirnaa ilaahay hadduu ka dhigo inay keenaan haddii jidkaa la marana waxa weeyaan ama berbere ha noqoto ama xamar ha noqotee saldhigyo ciidamo faa'iido keeni doonaa ma jiraan walaal military ma keeno horumar ma keeno marka waxaan qabaa waxa weeyaan labada madaxba kuwa hargeysa jooga iyo kuwa xamar joogaba hadday arrintan si wanaagsan uga waantoobi waayaan kuwa hargeysana hay ka waantoobi waayaan oo dadka soo bandhigi waayaan si looga doodo kuwa xamarna hay keeni waayaan wax xal ah oo waddankii isku soo celiya waxaan u malaynayaa tafaraaruqaasaa soconaya ama Ethiopia dhinac loo goosanaya ama imaaraadka qaar ka haysanaya ama Amazon baa qaar xukumanaysa khaliduurka ayaa lagu jira waxaan soo gabagabeynaya walaalaad oo raaliya waxa weeyaan waxa jirta dhalinyar fara badan oo waqooyi joogta oo qaarkood gabayaa yihiin oo ka hadlaya amuurahan haddii dadkaa la dhegaysta dhalinyarta Ireland Soomaali maanta waxa weeyaan 70% waa dad 30 jir ka yare dadka himiladooda iyo rajadooda haddii la dhegaysan waayo laakiinse kolba meel loo boodo u malayn maayo saldhig ciidan carabeed leeyahay inuu xal u keeni doono waqooyi walaal aad baad u mahadsan tahay wasiirka madaxtooyada Soomaaliya
waxa weeye dowladda federaalka Soomaaliya anagu kuma jiro nidaamka federaalka maanta laga yeegnayo Muqdisho waxaanay dal madax bannaan xaqiiqo jirtaan 25 sano maanta ayay Soomaaliya kala maqan tahay arrintaas aad hadda ka dhawaajinaysay talaabada haddii ay walaaladii ku kacaan waa gudub waa utun iyo arami horle oo Soomaali waxa isugu haray oo si dhaxdhigayo waa ka digaynaa waa uga caqli celinaynaa waxaana ummad la mid ah madax bannaan oo xaq u leh inay dhisanto iyagu saldhig bay bixiyeen xalanaa la degan yahay Turkiya degan dekedoodii ay dhiseen airportkii ay dhiseen caqliga odhanaya idinku waxba ha dhisanayay cid wax lama geli kartaan waa caqli uu Soomaali kala durkinaya waa ka digaynaa waxaana khilaafsantay heshiiskii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh ay ku galeen Djibouti madaxweyne Ismaaciil marxaatiga ka ahaa inaan la carqaladayn arrimaha horumarka iyo mashaariicda iyo developmentka marka arrintaasi waa arrin Soomaali maanta nabad bay isku dhex martaa iyadoo Soomaali baan ahay Soomaalinimadaana golahay siyaasad umaan ku kala tagin arrintaasi waa arrin heshiiskaas xaashi soo qayb kama ahayn heshiiskaasi soo qayb kama ahayn iyadana ilaalinta nabadgelyada oo tani soo geli mayso qodob heshiiskaas dhib ku noqon kara ka wada shaqayntay ayay ahayd arrimaha amniga iyo Soomaaliya iyo Somaliland bay ahayd walaale ma ahayn si kale laakiin qodobka saxay waxa weeye arrintii horumarka iyo maalgashiga iyo waxa inaan la caday iminka mashruuc baan nala galay tano keliya maaha mashruuc baan nala galay shirkadda DP World dekadii masadayadii caasimadda masadii caalamiga berbera lagu ballaarinayo walaaladayo way ka hor yimaadeen way dureen shalayna ahayd waqooyinta raadkeedu shacbiga Somalilandna waa maqlayay dugahooda shacbiga Soomaaliyeedna waa maqlayay nasiib darro walaaladayo xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan kamid iyagoo waa la mowqif oo kuwa ka hor yimid oo tan si korisana waa maasan tahay isagii baa jooga oo aan siinayaa Cabdiraxmaan xaq uma laha inay arrimaha horumarka iyaga ka hor yimaadaan iyadii waa tahay xaashi waa ku maqlay aad baa u maasan tahay gudoomiye Ciro waa aad maqlaysaa waxaan wasiirka u sheegayaa qaranimada Soomaaliya ka mid maahay laakiin waxaanu ku leenahay wasiirka waxaan maleeyahay waxaan leenahay heshiiska gasheen keena ummadda u keena ummadda shakiga iyo mugdiga ka saara xukuumadda dastuurka siiyay awood inay wax geli karto laakiin kolba walaaqay la soo warqoray oo heshiiska waqtigiisii aynaan golaan la horkeenin goluhu xaq u leeyahay heshiiska la soo galay inuu ansixiyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay gudoomiye ma jiro meel waxa nuxur la yiraahdo golaha la horkeeni karaa ma jirto meel ku qoran yahay ma jirto aad iyo aad baad u mahadsan tahay gudoomiye Ciro ugu dambeyntii waxaan u baaqayaa Dr. Maxamed Cabdi marka la eego xaaladda sida ay tahay sida maaragtay arrintaani ay ismaandhaafka uga keentay Soomaaliland fahanteeda mandiqada federaalkii arrimaha socda markaad ii soo koobto daqiiqad baad haysataaye saldhigani xaggee ku dambayn doonaa isleeda waa mahadsantahay Cabdinuur anigu hadda laba aragti baan kasoo gudbin lahaa arrintaa ku saabsan horta saldhig military hadday noqoto waxaan qalalaastaa in horta laga filmahayo oo ganacsi iyo horumar iyo erboro la dhisa iyo dekado la dhisa iyo inay shaqo ku leedahay filmahayo laakiin laba arrimood bay noqonaysaa haddii ku adkaysato maamulka Somaliland ama hadda dowladda Somaliland aan u dhigay haddii arrintaasi ku adkaysato horta faa'iido badan dadku kama qabaan aragti badan oo kala duwan aad baa ilaa shalay darar isla dhex marayay in dhibaatadoodu badan doonto tan labaad waxay tahay maadaama Somaliland aysan ahayn weli wadan la aqoonsaday oo hoos yimaado dowladda federaalka ah waxa xaqiiqa dowladuna ay ka hadashay hadda Soomaaliya ama xamar joogtaan ay ka hadashay in arrintani tallaabo ka qaadi doonto ay la xiriir doonto hay'adaha iyo wadamada ay khusayso runtii waxaad moodaa inaysan shaqayn doonin oo ay halkaa ku hari doonto mar haddii ay ka gudbiyaan hadal ku saabsan arrintaas iyo dekada iyo saldhiggaas ku saabsan aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa Dr. Maxamed Cabdi oo baraka ah jaamacadda Metro University London
dr cabdi ismaaciil samatar oo khadka maraykanka kaga jiray iyo maxamuud xaashi wasiirka madaxtooyada somalilan iyo guddoomiyaha baarlamaanka somalilan cabdiraxmaan cifro aad baad u mahadsan tihiin idaacaddii waa intaas tan iyo kulankeena dambe sidaas iyo nabaday This is the BBC.